وبشير عبد الرحمن حاجي قرحان شيف عاقل كي بشير عبد الرحمن ها وزير دولي هرو مدحتويدا بنتلاند iyo xiriirka gobolada waxaan maanta shirkan jaraa'id oo aan galabta qabanayo uga gol leeyahay ama qasdigiisu yahay taaniyad ballaaran iyo bogaadin waxaan u taaniyeenayaa madaxweynaha Puntland oo dib loo doortay Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaan kaloo u taaniyeenayaa baarlamaanka cusub iyo guddoonkiisa la doortay waxaanu ka marxaatinahay madaxweynuhu dadaalkiisii dimuqraasiyadda iyo doorashada one man vote-ka ugu jiray markii carqalado adigu ku yimaadeen oo la isku la fahmi waayay muhiimadda ay leedahay doorashada qof iyo hal cod ah oo ummadda oo dhan masiirkooda iyo representationkoodu ay guul ku gaari lahaayeen markii la waayay madaxweynuhu waa tanasulay wuxuuna u tanasulay maslaxadda iyo nabadda Puntland shacabkii reer Puntland sidii lagu yaqaanay ama wax laga filayo oo ka badanba waxay ugu abaalgudeen ayaga iyo xildhibaanadii la soo baxeenba inay madaxweynaha mar labaad dib u laabtaan xafladan waxaan kaloo ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo shalay booqasho ku yimid Puntland madaxweyne ku-xigeenku Cali Daahir Ciid aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa wuxuuna muujiyay isaga iyo ciduu mathalayaba inay aad iyo aad nabadeynta iyo dadaalka iyo taaniyada iyo baraaraha Puntland ka dhacay inay ka qayb galaan ra'yigooda iyo caqligooda iyo talooyinkoodana ay ku darsadaan madaxweyne ku-xigeen soo dhawow baan ku leenahay madaxweynaha cusub oo dib loo doortay waxaa ka muuqda ifaafaalo rajo leh oo cajaa'ib leh oo u muuqata sidii lagu yaqaanay Puntlandidii hore oo Soomaaliya siyaasadeeda ka dhex muuqan jiray oo hogaami jiray in madaxweynuhu hadiiba isagoon shan bari jooginba inuu ku tilaabsaday wuxuu madaxweynuhu ku tilaabsaday in oo raggii la tartamayay iyo mucaaradkii iyo waxgaradkii iyo isimadii hadiiba uu shirar dib u heshiisiina iyo afgarad u qabto wuxuu kaloo aad iyo aad aan taladiisu ay tahay oo aan uga warqabnaa inuu xiriirkii fiicnaa ay haddii ay ku habboon tahay iyo haddii Puntland waxay tabanaysay looga garaabo inuu soo celinayo xiriirkii dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu waxaan kaloo ka rajaynaynaa inuu isimada faraha badan ee Puntland xogaha kala fir ku dhacay inuu heshiisiyo isku keeno oo tub la wada raaco tub nabadeed tub siyaasadeed iyo tub horumareed madaxweynaha waxaan kaloo si weyn uga rajaynaynaa awalna uu wax weyn ka qabtay cilaaqaadka isaga iyo SSC Khaatumo u dhaxeeya taas oo lafdhabar u ah midnimada Soomaaliyeed iyo nabadda iyo deganaanshaha nawaaxigan Puntland iyo inta u dhowba waxaan ka rajaynaynaa arrintaasuna inay xoog yeelato si fiicanna waa u socotaa waxaana weeye dad ehela oo walaala oo isku mid ah oo siyaasaddu hadba siday timaadaba heshiis ka geli kara wada soco kara wada joogi doonana taasna waxaan uga baxayaa Khaatumo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug xalay iyo saakay maraan shirnay waxaan aad ugu farxay ifafaalaha nabadeed oo Galmudug iyo Puntland uu ka dhex wado waxaan rajaynaynaa in nabad waarta oo dadka dariska walaalaha Soomaaliyeed inay ka dhacdo siiba madaxweynaha waxaan ku wada hadalnay inuu kala hadli doono madaxweynaha Puntland sidii dhankan saaxo oo Puntland iyo Galmudug sidoo heshiis uga dhexdhalin lahaa heshiiskaana ay iskaga kaashan lahaayeen madaxweyne ku-xigeenku dowladda Galmudug iyo dowladda Puntland taas oo nabadeyn rasmi ah aan rajaynayno kaalkacyo ama Garowe
in lagu qabto. waxaa mudan in la xuso madaxweyne Deni in sidii hadda socdaalka madaxweyne ku-xigeen ku yimid iyo casuumaadii ugaaska aan ka shaqeeyay oo wafdigii ugaasku ku yimid iyo sida heelan oo reer Gado iyo Galgaduud Koonfureedba ayagoo dhib ku jira qolada dagaal ku jirto qolada fatahaad ay kala qayb qaateen Puntland nabadeynteeda in abaalkeedii la gudi doono oo madaxweynaha Puntland iyo dawladdiisuba iyo isimo ay ka shaqeey doonaan sidii reer Gado loo nabadeyn lahaa iyo dhammaan Jubbalandiba. arrintaas arrin aan ka rajaynayno oo aan ognahay oo madaxweynuhu ay ku jirto hadafyadiisa siyaasadeed iyo midda dib u heshiisiin iyo midda isku soo jiidka maxaa shacbiga Soomaaliyeedba inay ugu horeyso baan ka rajaynaynaa. waxaa kale oo aan u mahadcelinayaa shacbiga reer Puntland oo aan ka tirsanahay oo wasiirka u ahaa oo chief caaqilka u ahaa sida xasiloonida leh oo nabadda leh oo caqliga iyo miisaanka ku fadhida oo dib u heshiisiinta leh doorashadii walwal badan naga hayay sida ay ugu xasileen sidii doorashadu loo galay sida ay ugu hiiliyeen halgankii iyo hadafkii guud ee Soomaaliya oo dhan oo ahaa indhaha iyo iftiinka oo ahayd one man vote markii la waayay inay si nabad ku jirto oo ehelnimo ku jirto oo xasilooni ku jirto doorashadii reer Puntland u galeen. marka baarlamaanka Puntland isimada shacbiga Puntland waxaan ugu tahniyeynayaa xasilooni iyo dawlad wanaaga iyo dadnimada horumarka leh oo ay arrintaa ku soo dabooleen. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaan ugu rajaynayaa. aakhirkii madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa kulana talinaynaa Puntland cusub oo waxgarad iyo mutacalimiin iyo dad daacada oo horumarka u ah ehel maantay inuu la taliyaal iyo wasiiro iyo agaasimeyaalba uga dhigo. aakhirkii xoogaa waxaan ku darayaa degmada Saaxo oo ah degmada ugu yarayd ugu cusbayd oo la waxeeyay oo gabageeduba aysan jirin 8 sano. waxaan degmadaas ku bogaadinayaa siday doorashada u galeen oo cod 5,000 ka badan ugu soo baxday isdiiwaangelintii iyo sida horumarka lixaadka leh oo beeraha tacliinta caafimaadka iyo nabadgelyadaba ay ugu tilaabsadeen madaxweynuhu inuu hididiilo cusub iyo nabadeyn ay deegaanada Galmudug kula waxeeyo ayadana waxyaabaha kabayaasha dhaqaalaha iyo serviceka shacbigu u baahan yahay madaxweynuhu inay aad iyo aad la saayiro oo wax badan uga qabto siday u noqoto role modelkii cusba oo Puntland. degmada Saaxo waxay qiimi ku leedahay difaaca Puntland iyo dadris wanaaga ay la leedahay dawladda Itoobiya iyo kidilka Soomaaliyeed say ula leedahay ula shaqeysana waan ku hambalyeynaya. madaxweynaha waxaan soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaana guul iyo baraaro iyo u rajaynayaa madaxweynaha Puntland. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guul Puntland, guul Soomaaliya.